بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالin wanaagsan walaalada qaaliga isku soo noqdo wanaagsan insha Allah waxaan noo rajeynayaa caafimaad dhamaanteynba meel walba oo joogno haduu Ilaahay yiraahdo walaalada qaaliga ah maanta waxaan noo wada video yar maasha Allah tabarakallah oo aadni anfici doono insha Allah oo gabdhaha walaalada aad u anfici doono kana heli doonaan insha Allah marka asxaabteeda qaaliga ah waxaan idin ka codsanayaa inaad fiidiyoyada noo share gareysaan insha Allah bidnillaahi kariim share like comment waan iniga mahad celinayaa walaalada cusub waxaan leeyahay channelkeena arka insha Allah hadaad ka heshaan subscribe noo saara gambaleelkana furta walaalada si aad uga mid noqotaan asxaabta nagu xiran oo mar walba aad ula socotaan video alaalay videoga aan soo dhigno waan iniga mahad celineynaa shukran ayaa idin wada leeyahay dhamaantiinba inta nala joogtana waxaan leeyahay like share iyo comment intaba insha Allah marka walaaladii qaaliga ah maanta waxaan noo wadaa insha Allah maasko cajiib ah oo maasha Allah ah oo wajigaaga daadax kaaga dhigayo qurux nadiif maxaa yiraahdaa shining moisturizing ku siinayo oo waxaan ku dhahay markaad iska dhaqdo marka wajigaaga saas gacantaada u saarto aad isku bogeysid maasha Allah sabiibix adiga dhan liisho oo ku noqonayo wajigaaga gacantaada markaa ku taabatid iyo aragiisaba maasha Allah tabarakallah oo aad ku anfici doono haduu Ilaahay yiraahdo gabar walba Soomaaliyeedna anfici doono insha Allah bidnillaahi kariim marka walaalada maanta maaskahaas ayaa idin la share gareynayaa insha Allah sidaad aragtaanba hadda alaab ayaan halkan ku soo diyaarsaday waa alaabta aan ka sameysan lahaa wali wax kale ayaa dhiman waan soo wadaa insha Allah oo aan ku soo daraayo oo aan rabo waxyaabaha aan ku darsanayo inay ka mid noqdaan insha Allah maxaa ka mid ah waxyaabaha aan isticmaalayo waxaa ka mid ah vitamin E gaanetole oo capsule-ka ah gel capsule-ka ah insha Allah saliid waaye gel maaha saliid waaye aan dhaho vitamin E oil oo waxa waaye facial-ka ah oo wajiga loogu talagalay insha Allah sidaan wada ogsoonahay vitamin E ga aad ayuu jirka ugu fiican yahay maasha Allah tabarakallah waan loo baahan yahay waa wax wajigaaga iyo jirkaaga u baahan yahay marka waxa koow ka mid ah capsule-kan oo vitamin E ga ah insha Allah aniga hadda muddo waxaan isticmaalayaa 4 bari wallahi 4taas bari ayaan wax iskaga gartay ka hor ma isticmaali jirin laakiin 4 bari ayaan si direct u isticmaalayaa 4taas barina yani waxaan iskaga gartay isbedel aad u weyn maasha Allah tabarakallah markaa marsanayna maalintii ugu horeysay ma ogeeyay hadda kalidiis ma marsado waxaan ku darsadaa alaab kale maalintii ugu horeysay ayaan kaligiisa marsaday wajiga laakiin inta ka dambeysay 3 bariga kale waxbaan ku darsanayay insha Allah marka waxaan idin la wadaagayaa hadda waxyaabihii kale aan ku darsanayay insha Allah halkan waxa ii yaalo hadda gacanta aan ku haayo waa barida idaha subaga barida sida u taqaanaanba insha Allah oo uu cusub yahay kan hadda dhowr bari muddo waxaan haystaa hadda isbuuc kan uu iga dhamaaday oo horaan u isticmaalay laakiin intii hadda 2 bil camal ma aan isticmaalin oo uu iga dhamaaday marka hadda ayaan hadana xabad kale soo qaatay marka asxaabteeda qaaliga ah sidaad aragtaanba hadda waxaan halkan ku hayaa bari waxaan kaloo idin tusay capsule-ka vitamin E ga ah ee aad arkayseen baridana subaga waxa waaye subag yani bari sidiisa ah ma ahan subag yani la isku soo dardaray iyo wax qasqas ah waa subagii barida oo caadi ah oo baridiyo sideeda u jeedid ah marka waxaa la rabaa subag bari oo saafi ah hadaad helaysid oo sidii yani baridiyo la soo shiilay ah marka shiirkiisa ma dareemaysid marka waxyaabo ku darsatid laakiin hadda marka kalidii aad tiraahid waa marsanayaa uu ka soo shishiiraya marka waxaan ku dhex darayaa alaabadan kale marka hadda kan uu iga dhamaaday waan idinka idin tusinayaa waxaan idin kugu soo celinayo oo hore iga dhamaaday caagaas waan isticmaalay muddo adiga hadda 2 bil ka hor ayaa igu dambeysay 2 bil hadda ma isticmaalin oo soo iga dhamaaday laakiin hadda ayaa hadana ii noqotay inaan soo qaato isbuuc ayaan hadda kan haystaa marka walaalada qaaliga waxa halkan hadda ku haysto oo idin tusay waa barida waa capsule-kaas vitamin E ga ah ee aad arkayseen ee aan idin tusinayay oo hadana aan gacanta ku haayo abaayooyinka waxa leeyahay ka war doona vitamin E capsule-kan maasha Allah aad iyo aad ayaan aniga uga helay waan la dhacay wallahi been mani sheegayo wajigayga wax badan ayaan hadda kaga gartay 4 cisho aan marsanayay maasha Allah tabarakallah maalin kasta xabad ayaad marsanaysaa insha Allah hadaad jaanis u hesho qofkii jaanis u haayay oo wajigiisa inuu wax mariyo rabo maalintii xabad enough waaye ka badan ma fiicno
marka waxaan hadda halkan ku shubanayaa waxaan isku dardarsanayo ayaan idinla wadaagayaa insha Allah. waxaan ku shubanayaa waa qasil marka inaan isku badiyo ma rabo yacni waxaan u rabaa kaliya wajiga inuu iga qasaaro oon daadiyo hadhowti ma rabo marka ani wixii maalinkaas aan marsanayo ayaan rabaa inaan wajiga u qasto inaan finijeeriga geliyo ma rabo marka asxaabtayda qaaliga hadda halkaas waxaan ku shubtay in yar oo qasil ah kanna waa beelasaaro oo face mask ah oo maxaa la dhahay magaciisa muxuu ahaa face pack waa wax isku jiro waa qasil waa shumburo waa huruud yar waa adi alaabo la isku soo dardaray oo intii wax korkiiga jirka loogu talagalay la marinayo geedaha ahaayoo la isku soo dardaray shumburo wax walba ku jiro marka in yar ayaan isaga kaga darsaday iyo in qasil ah hadda sidaad aragtaan waxaan ku darsanayaa waa dacartaana waxaa ku jirta tea tree oil waa hadda waxaa meesha ku darsaday waa qasil waa face bag isku jirka ah iyo dacar face bagaas maasha Allah aad ayuu u fiican yahay marka ani hadda waxaan iskugu yareeyay yacni huruud maadaama ay ku jirto wajiga dhan huruud inuu iga noqdo ma rabo marka in yar ayaan hadda ku darsaday hadda waxaan afka ka jarayna waa vitamin E capsule-kii aad arkaysaan waan ku darsanayaa isagana sidaas ayaan ugu dhiijinaysaa maasha Allah tabaaraka Allah saas ayaa ugu darsanaysaa isagana maasha Allah wallaahi ani hadda bahalkan capsule-kan maasha Allah waxbaan iskaga gartay marka baayooyinka idinkana soo tijaabiye saliidaas waaye markaa marsatid korkaaga saliid waa wajigaaga waxyar kadibna waxaa moodaa saliid badneed inuu yacni liqaayo jirkaaga uu galaayo oo jirkaaga uu liqaayo yacni sidii hadda saliid saxda ahayd wajigaaga kuma noqonayo laakiin dufanka waa yeelanaysaa laakiin jirkaaga uu liqaaya ma fahantay marka waxaan hadda kaloo ku darsan doonaa insha Allah in yar oo subageenii barida ahaa hadduu ilaahay yiraahdo ayaan waxyar kaga darsanayaa oon badneyn isagana tartiib intaas ayaan waxyar ku siisanayaa kuma badinayo intaas igu filan marka intaas ayaan hadda isku qasanaynaa insha Allah waxaan ku qasanayaa biyo yar hadduu ilaahay yiraahdo waxyar oo biyo ah ayaan ku qasanayaa insha Allah saas ayaa in yar oo biyo ugu qasanayaa marka walaaladii qaaliga ah waxaan idin leeyahay tijaabiye intaas isku darsada vitamin E capsule-kaas oo facial-ka ah oo wajiga loogu talagalay maqaarka maxaa iraahdaye in yar oo bari ah dacartaas yar Allahumma isticaal qasil yar iyo in yar oo face bag ah haddaad isku darsato oo maalin walba wajigaaga aad mariso wallaahi wiiga ugu horeeya wajigaaga waxaan ku dhahay waxbaad ka garanaysaa hadduu wajigaaga haaro leeyahay hadduu madmadow kugu harsan yahay yacni haraq camal sidii wax hadduu kugu jiro waxaasoo dhan liishuu kaaga dhigaya maasha Allah waji nadiif ah oo daadax ah ayuu kaaga dhigayaa oo soft ah oo waxaan ku dhahay markaa gacantaada mariso aad iskugu bogbogeyso marka abaayooyinkeyga waxaan leeyahay aniga idinka huba oo soo tijaabiyey idinkana intaas sameysta isku darsada maasha Allah tijaabiye insha Allah wajigiina waxaad ka arki doontaan isbedel insha Allah marka asxaabteyda qaaliga ah probey ayaan idin dhihi lahaa ani hadda waxyar inay ii jilicsanaado ayaan jeclahay maadaama qasilka uu jijiid yahay oo maxaa iraahdaye is adkeeyo marka waxaan jeclahay inuu si yaroo jilicsan ii ahaado qasilka adag ma jecli isagoo adag inaan marsado marka hadda waxyar waan sii jilcinayaa sidaad aragtaan biyaan ku daray marka waan sii jilcinayaa insha Allah marka asxaabteyda qaaliga wajigayga ayaan dhag ku siisanayaa hadda maadaama maxaa iraahdaye iska yara maxaa iraahdaye yahay hooyo xaamile ah waxaa waaye inaad iswadado isnadiifiso ileen waxaa waaye uur markii laleeyahay waa la yaqaanaa oo wajiga wuxuu ku noqonayaa adi dhan qofka yacni hormoonkiisa kacaayo isaga dhan nooc kaluu noqonayo isbedelaya ilmu ilaahay ku beerayo marka inaad isyaro wadadana way fiican tahay oo naftaada aad ka warhayso isdayicin
marka maasha allah walaaladii qaaliga waa kaasaa ka wardoona insha allah marka waxaan idinkaga tagayaa kheyr iyo kheyraad waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu